Shawty, I'm a real freaky nigga, yeah. Eat it good, make you wanna keep a nigga, yeah. Like me. بسم الله الرحمن الرحيم وين السلام حق ايق داونس او وياما يوتيوب مقعيق او وياما maanta waxaan tusinaa magaalada Gothenburg sida ay tahay maanta gaar ma qaadanaya maxaa la tareenka raacaya iyo bas laakiin waxaan leenahay meesha tareen la ka bax xafadeeda soo hal sana degana tareenka inta raacana way tirsantaa marka insha Allah xaba ma maxaa la yiraahdaa maanta magaalada ay soo tusi doonaa nolosha guud ahaan Sweden ka hadlayna sida ay tahay maaragtay iyo sida dadkii ugu nool yihiin maciishada nolosha waxyaabahaas maanta marka insha Allah ana la soco rajeenaa maanta inaa ka heli doonto fiidiyogaanato xaggan ayuu batraynka soo istaagayaa 5 daqiiqo mar maadaama ay tahay maalin maanta talaadina taa rajeenaya ma xasuusto maalmaha taa kale 5 daqiiqo mar soo istaagaa dhinacan magaalada ayaa loo raacaa dhinacana xaafadaha loo raacaa xaafado badan ayaa inta jiro xaafadaha loo raacaa marka tareenka raacaysa waxa baanta ticket sida wada ogna meel walba caalamka oo dhan ticket ayaa la goostaa ticketka meeshaan tusaale ahaan had waa la qaaliyay 35 kron oo malena lacag u dhiganta saddex euro bar mixsa amalaay saddexdaas euro bar waxa ku raaci kartaa sona A iyo sona B yani 180 daqiiqo ay kadib ayuu ka dhacaa ma fahamtay xaajada adiga inta ku soo gudanayso hadoo kana uu imaade kana raacaya kana magaalada igeen doono kadib tareenka la raacaya marka insha Allah waa arkana station waxaan ku tagaynaa badnaan 15 daqiiqo ilaa 16 daqiiqo haddii soo wadada wax ka dhigay tareenada maaragtay haddii wax ku dhicin haddii 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo iska max tareenka station uu geen doonaa kadib tareenka la raacaya kadib magaalada dhaxmarina insha Allah xagan waa central stationka meesha yani tareenada gobolada fog iyo wadamada kale ka yimaada looga soo dagaa gudaha ma u gali doon laakiin maalin kale u galeena meeshan tareenada xaafadaha ka soo kala daga maarkin xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay oo ka yimaadaan degmooyinka qaar train stationka xagga dambe waxa ugu soo daganaysaa basaska gobolada ka yimaada maaragtay ilaa basaska ka yimaada Norway la Denmark ka yimaada xagga lagu soo dagaa sida waa magaalada centralkeeda insha Allah meeshan inta waxa waa maxaa la moolka magaalada waa dhax mareena ma dhax galeen ugu weyn yaa waa lagu dhax dhumay ma fahanti yani zaa uma weyn ma ku dhax dhumaysid laakiin waqti ugu ma soo talagalin ma fahanti laakiin waa dhax mareena insha Allah suuqiisa aragtaan guud ahaan xagga waa meesha moolka magaalada dukaamo badan oo ku yaalo wax walba ka helaysid badankood dukaamo cunto hal xabad laba xabad inuu ka yeelan oo meena laakiin badankood waxay badan dukaamo dhar elektroonig waxyaabahaas u badan wax ku yaalo meeshan iyo farmasi kan waa farmasi apotek yani luqadaha badankood Yurub apotek farmasi lagu dhahaa Jarmalka Norwishka Danishka apotek isku meesha la waayo dukaan badan oo ku yaalo sida Brothers oo kale to xagga waxa luqan kale to waxa ku yaalo sheeg HM-ka oo aan noloshii Sweden marka ku nooshaa Sweden shakhsi aad tahay yani qof kaligiis aad tahay oo dhalinyaro ah oo shaqeeyo yani nolol sida waadag ma sida oo qaali ama fahmino sida Norway oo kale ama maxaa la Switzerland ama Jarmalka oo kale miciishadeedu waa iska jaban tahay inkastoo marka shaqeeysid adiga cashuur lagu dilayo ma fahanteen tusaale aan marka taa qof xifrad leh ka soo qaad ana hadda waxa track mechanic ah fahmino mechanic baawurta culus ahay
markaa shaqaysid oo intaa canshuurta lagaa jirin waxaa ku soo galaysa iska dheh lacag ku dhow $2,600 ku soo galaysa bisha canshuurta ka hor soo canshuurta markii lagaa jiro kadib waxaa ku soo dhacaysa adi 700 600 ay ku xirantaa degmada degantay ku xirantaa fahmino gobolkaaneeto soo markaad 600 700 800 lagaa jirto 1900 ku soo haraayo marka kaliya guri aad degan tahay yani guriga adiga gacanta ku wada ku qoran tahay waxa laga go'sanaa iska 700 maxal korontada wax dhan iska dhig guri aan guriga way kala qaalisiin xaafadahan way kala duwan marka 700 iska dhig يعني 700 gurigaaga markaa ku bixisid maciishada waxa ka badan $150 ka badan ma fahmino markay 1900 ku soo xarato kun ijaarka gurigi cuntadii korontadii waxa dhan ay kaaga bixin gaariga shidaalkiisii yani wali waxa ku soo haraa $1 sax oo ka 500 Soomaali u dirtay yani 500 baa ku soo haraysa adigu ugu badnaan fad at least adii wax uun meel dhiganaysa habeerate teeda kale tan waxbarashadana waxa wadanka waxbarashada waa free ilaa 8 sano ay ka gaarayso jaamacadaha barnaamijyada maxalla fakultiyada qaarkood waa free marka laga rabo bayloodka lacagta iska bixinayo laakiin jaamacad waa free marka lagu dhahay maahan wax walba free yihiin yani fiiga aska bixin lahayd bas free buwaagta wax walba adaa soo gadanayo ma fahanti laakiin waxaa jirta hay'ad kugu caawinaysa inaad wax baratid oo lacag deyn ku siinaysa ma fahanti laba lacag ay ku siinaysaa lacag deyn iyo lacag aad deyn ahayn soo marka adiga taaratid adiga og qaybtan ugu dambaysa videoga maanta aduubay insha Allah marka la sarki doona maanta maxalla ay sheeg waxaan rajaynayaa wax badan aad ka fahanteen nolosha qurbaha ama nolosha Sweden gaar ahaan waxaan rajaynayaa kanaalka subscribe aad sii doontid hadaadan hor u saarin hadaa cusubtaan ugu soo biir wax walba aad jeceshiin maxalla comment ku dhaafa su'aalo wax walba yani aniga waa idinkaga soo jawaabi doonaa insha Allah cimri dheer caafimaad noo wada rajaynayaa dhamaanteena bye bye